maaha caqli maaha see weeye alaysa minkum wuxuu nabiyullaahi luud markii qoladii balaayadii ay u yimaadeen qowmu luud markay u yimaadeen ayaa loo soo farmuqoo la yidhi tiftif iyo balaayaa la joogay xaaskiisaaba ka mid ah caawa luud waxaa u soo martiyey oo marti u ah dadkii adduunka ugu qurxoonaa ilaa waa malaa'igta ilaahay oo bani aadam iska dhigtay markaasi albaabka soo garaacay now war naga fura albaabka war maxaad tihiin war waa waxaan rabna waa garanaysaahe albaabka naga fura war maya laadka fura ma albaabka allahu akbar malka jibriila dharbaaxa ku dhuftay raggii oo dhan hal mara sidaa yidhi waad daateen way dhaarteen waxay yidhaahdeen ninku markuu daalim yahay isma oga waxay yidhaahdeen waagu ha noo baryo luudow daciifkiiyow mallaandheeraad ismoodi waagu ha noo baryo ilaahay baa ka jawaaba wuxuu yidhi alaysa الصubxu biqariib ina mawcidahum الصubxu mawcidkooda u dambaysa ee la halaagaya waa waaberiga alaysa الصubxu biqariib waagu miyuusan dhoweyn fadamasna acyunahum faduuquu cadaabi wanuduri marka hore cadaabka adduunka ayaa lagu tusay dharbaaxa lagu dhuftay nebigood dhulkay dhaceen markii dambana cirka inta loo qaaday ayaa samaawaadka laga soo daayey maca kilaabkii eeyihi wixii o dhan oo dhawaaqaya waa macsida ay galeen wamaa qowmu ilahay wuxuu leeyahy wamaa qowmu luutin minkum bibaciid war qowmu luud waxay sameeyeen ma foga intkama foga waa dhow yihiin miyaanan balaayo samayn hadda الزنا الفواحش والرشوة والكذب والخيانة عنصرية قبلية لواط مخادرات kuwa masaajidka isku duraya masaajidkii isku duraya intay maskusha yidhahda kaadii haysa walaalo iga wareeg shab war waa maxay waxaas waxa weeye nin baa waxaa la yidhi intuu khamre ka dhergey ayuu gabadhii uu dhala damaaciyey markaasaa maalin dambe wadaadii ka qarisay markaasuu gabadhi aawey markaas gabadhi adaan kaa fogeeyey ma saasaa khamrigii maalintaasoo joojiyey mukhadaraadka maalintaasoo joojiyey war mukhadaraadka iyo balaayada walaalayaalow iska dhaafa joojiya adduun iyo aakhire liibaan wax aad ka fahmana aakhirana waa ka fogaateen adduunkiina cadaabaad ku jirtaan saddexdaas saaxiib buu ninku leeyahay saaxiib waa kaa haray saaxiib qabriguu kula tegey saaxiibna qabrigiibuu kula galay ninka qabriga kula gelaya ayaa fiican qisa haddaan idin sheego xoolahan waad ka tegey boqolaal milyan 2 milyan 3 milyan 4 haddaa ka tagtid yaa wax kuu bixinaya haddaa dhimatid wuxuu yidhi maxamed bin waasic salafkii ragga ka mid ah wanaagsanaa haddaan dhinto waa cibaado badnaa habeenkii markuu seexanayo dardaarankiisa barkinta hoosteedu ha gasho jiri yaa kuu sheegay inaad noolaanaysid ilaa 20 sano oo xoolahan aad laysanaysid waxaa weeye qisadii aan wadi waxaan inaad dhamaysanaysid in kale adigu ma ogid waa lagaa dhaxlayaa nin waxaa jiray xoolo badnaa dadka khaliijka oon muddo badan ku noolaa uu xoolo badnaa wuxuu ahaa saaxibu tharwa hani ninkii wuxuu soo aaday cimra maka waa soo cimraysanaya niman masaajid dhisaya oo masaakiina oo aan masaajidkii awood u lahayn ayuu u yimid markaasay farxeen oo yidhaahdeen allah maanta ninkii hebel ahaa masaajidka waa dhisayaa markaasuu wuxuu u dhiibay jaag ay ku qoran tahay 5,000 oo riyaal 5,000 riyaal waa imisa $3,000 meelahaas wax ka yar markaasuu dhaqaaqay oo yidhi cimraan u socdaa meel dhaca markuu marayo qisada waxaan uga jeedaa xoolahaad ku fara adeygaysaan ciyaal weera iska leh ciyaal weera iska leh waxaa iska leh jabalujaan kuwa ku jira balaayad oo le allo aabba mar naga dil ninkii markuu meel marayo wuxuu arkay moodalkii ugu dambeeyey wiil ku tafxiidaya tafxiidka saas ugu cayaaraya warararararara ee ku wareejinaya ayuu arkay ninkii wuxuu joojiyey gaarigiibuu joojiyey wiilkiibuu la hadlay wuxuu yidhi maandhow gaarigan moodalka ugu dambeeya halkeed ka heshay yaa ku siiyey oo saan ugu cayaaraysid yaa markaasuu yidhi waxaan ka dhaxlay abazanuuba
أبو الزنوبة أيان كدحلي. إيش معنى أبو الزنوبة؟ ننكي دعس لها وحوليه زكاة عطاء أيان كدحلي وربي يقدلي. الله أكبر. أنتو سوكلا فريي أيو قلدي مساجدك يمد مركاسو يري مساجدك أي مساكو كعيسة مركز الحمد لله أنت سو كعيسة شاب بقري أنت ويلك أنا لي وليه لها أبو الزنوبة كدحلي إلهي هرتي سنجستي وهوية مركا وعلى الرباه إن الإلهي هرتي سوى حقستان مالك ما قدمت حول